بسم الله السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أصحاب الشرف له قيمة بدن قايها بدن ومركلية موقع عصب برتن أديك هنيسان وبرتيني وبرتين كل مجرني ولا كامل يبرا صلى النبي سبحانه هنا صلى الله عليه وسلم أهل ما من الوقت هذا ينتهي صوت كذا كدمنا يسوق كان ويه أنت كذب وحقيقية هو بعض هدان مقدش عايو مقدشو waa meesha ugu riska badan adduunka muqdisho waa meesha ugu liidata muqdisho maxay tahay hadaan muqdisho wax ka sheego waa aaminsanahay xataa dawladda Soomaaliya in ay qiil ku talagelayso in ay geliso hadaan ka digo shacabka Soomaaliyeed oo dhaminay in uu soo wada oranaya laakiin gaalkan gaal ku dhalay oo muqdisho inta foosha xun soo duubaya maanta muqdisho caasimaad horumartay bay noqotay laakiin inta foosha xun guriyihii jajabsanaa guriyihii dadkii lahaa ay ka tageen war waa la yaab ninkan isaga soo noqnoqonaya oo gabdhihii caayaya oo magaaladii caayaya oo wax walba caayaya haddana aan dawladii ma jirto dawlad baan jirin dawladu wax ka qabataa ma jirto sirdoon shaqeeyo oo dalka oo wax ka qaban kara ma jiraan ajaayib taa bedelkeeda xildhibaan maxamed cumar dalxa baa wuxuu ka sheekaynayaa deegaano uu booqday oo Soomaalida ka mid ah gaar ahaan Puntland bal iyadana wax yar baynu isla eegi doonaa runtii waad hagardaamayn kartaa oo aad murmi kartaa muxuu ka sheegayaa bimaana adoo qalbigu ku maqan yahay xaasidnimo iyo belo iyo wax kugu jiraan laakiin xildhibaanku si hufan professor maxamed cumar dalxa fanaan hore si hufan buu uga hadlayaa iyo sida aragtidiisu ay tahay ma rabo muuqaalada in idinka dhex galo nin la yiraahdo Amaari yes nin la yiraahdo Abwaan Amaari oo social media ku jira ayaa ka hadlaya ninka hadda ka hor buu ka hadlay beri hore ka hadlay waa nin cadaan ah ninkaasi muqdisho taga muqdisho caaya waa aflagaadeeya markuu soo aadayo muuqaalada waa ka bixiya marka uu ka bax tagana kuwa hadda wuxuu keenay isagoo dhex jooga inuu caayo waliba isagoo indhaha u kala fiijinaya oo sidoo u caayo alla yaabis waxba arrintiisa ma raba inaan galo Abwaan Amaari baa soo balbalaariyo oo aad daawaday bal Abwaan Amaari baynu daawanaynaa kadibna Maxamed Cumar Dalxa iyo wixii kala qabsaday reer Puntland baan idin sii deynaya waxaan ku soo laabtay magaalada adduunka ugu halista badan ee Muqdisho waxa sidaas yiri ninkan aad arkaysaan ninkan ayaa magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay haddana waa uu joogaa okay marka hore waxaan ka codsanayaa muuqaalkan waa xasaasi inaad share garayso oo aad la wadaagto qof kasta oo Soomaaliyeed gaar ahaan dadka mas'uuliyiinta dawladda aad ka taqaaneen inaad la wadaagto okay ninkan waxa lagu magacaabaa Diru bin Sky hadda koor ayuu muuqaal halistiisa wata ka sameeyay magaalada Muqdisho Mogadishu is the most dangerous city in the world oo uu ku tilmaamay in Muqdisho ay tahay magaalada adduunka ugu halista badan muuqaalkiisi waan ku shil doonaa ninkan dib ayuu ugu soo laabtay magaalada Muqdisho haddana waa uu joogaa waxa uu rabaa in uu mar kale ka sameeyo muuqaal uu ku tilmaami doono in Muqdisho ay tahay magaalada ugu halista badan iyo wax kale oo ka sii badan ninkan aad arkaysaan muuqaalkii uu ka duubay 2023 bishii May waa uu ka bixiyay bartiisa YouTube-ka iyo Facebook-ka intaba waa uu ka bixiyay hadii aan raadiyay muuqaalkaas waan soo waayay markaas oo ahayd 2023 bishii May waxaan ka sameeyay muuqaal kaas oo aan uga falcelinayo wixii uu ku tilmaamay magaalada Muqdisho maamulkii magaalada markaas si joogayna aan ugu baaqayo dadka noocaan ah ninkan iyo dadka la mid ah in magaalada laga xadado oo laga celiyo waxa ay duubayaan lala socdo ninkani ma ahan markii koowaad markii labaad oo uu imaanayo Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waa markii shanaad afaraad waa inta uu imaanayo magaalada Muqdisho okay waxa jira muuqaalkii barigaasi aan falcelinta ka sameeyay waan hayaa oo waa kanaha Mogadishu is the most dangerous city in the world
waxa uu leeyahay magaalada Muqdisho waa magaalada adduunka ugu halista badan sidaas ayuu adeegsanaya okay markuu ku soo laabanayo Soomaaliya waa uu ka bixiyay muuqaalkaasi bartiisa Facebook iyo sidoo kale YouTube-ka waa uu ka saaray isagoo oo markaasi isdhahaya dadka Soomaaliyeed waxa weeye waa dad aan xisaabtamin oo arrinkaasi maaragtay aan xasuusan doonin waa uu ka saaray okay bal soo fiirsha bartiisa YouTube-ka soo fiirsha Facebook-giisana soo fiirsha waa May 2023 waqtiga uu soo gelinayo muuqaalka waan ka soo waayay YouTube-kiisa iyo Facebook-giisa intaba waan ka soo waayay meel kasta oo aan ciwaankii waan xasuustaa aan ku qorana waan ka soo waayay marka laga reebo falcelintii jabkii yarka ahaa oo anigu aan ka falcelinayay oo muuqaalkii anigu aan hayay marka laga reebo inta kale waxa weeye waan ka soo waayay xagaag ninkan aad arkaysaan waxa uu bartiisa Instagram-ka iyo sidoo kale Facebook-ka soo dhigay sawiradan ayuu soo dhigay kuwaas oo uu ku galay magaalada Muqdisho gaar ahaan xeebta Liida uu ku galay waxa uu ku soo qoray I'm back in the world's most dangerous city ayuu ku soo qoray waxaan ku soo laabtay magaalada adduunka ugu halista badan hoosna waxa uu uga soo qoray Muqdisho banaadir Soomaaliya wad u jeedaan calankiina waa uu soo raaciyay indho sidaas ahna waxa uu uga soo dhigay sticker dabcan waxa laga yaabaa historygiisa marka aad u laabato oo aad soo fiiriso inaad ka soo weyso sawiradan iyo muuqaalada uu soo dhigay laakiin aniga ayaa qabtay oo screen record ka duubay waana kana aan kula wadaagaya okay gabdhahan aad arkaysaan ayuu hadana sawir la soo galay wuxuu ku soo qoray most women are shy of the camera here halkan badana habluhu kamarada way ka xishoodaan ayuu leeyahay but not these ones laakiin kuwan ma xishoonayaan ayuu taagan yahay they asked me for a selfie ayagaaba i weydiistay in aniga ay ila galaan selfie inay dadka wuxuu leeyahay hablaha halkan jooga badana kamarada way ka xishoodaan laakiin kuwan ma ahan kuwa xishoonaya waxa weeye ayaga ayaana i weydiistay in selfie-gan ay ila galaan wad u jeedaa sawirka wiilashan Soomaaliyeed oo Liido banooni ku dheelaya ayuu maaragtay la soo galay sawiro xagaag ninkan muuqaalo ayuu duubaya dhowr mar oo imaaday magaalada Muqdisho waxa uu ka duubay Muqdisho goobaha wali uu ku dambeeyay burburkii iyo maaragtay dayactir la'aantii wali ay ku dambeeyaan ayuu ka duubay muuqaalkiisa kuma jiro hal dhisme ama hal wado oo toosan iyo hal meel oo fiican kuma jirto goobaha qashinka adduunkana magaalada ugu quruxda badan waxa ay leedahay meelo gudaafada ay leedahay meelihii gudaafadaha ayuu tagay bal u fiirso gudaafadihii ayuu tagay waxa uu kala tagay ilaahay kuma samadiide waxa uu kala tagay dhulkii guryihii burbursanaa oo berigii hore ay rasaasta iyo madaafiicdu ay ku dhici jireen guryihii dadkii lahaa ay dayac tiran waayeen qurbaha ay ka galeen oo wali sidii ah dhismayaashii dawladda oo wali la dayactin intaas buu ku laalaabtay kadibna waxa uu soo saaray muuqaal ku saabsan in Muqdisho ay tahay meesha adduunka ugu halista badan run ahaantii Muqdisho ma ahan meesha adduunka ugu halista badan Muqdisho waxa ka halis badan New York ta Mareykanka ayaa ka halis badan waa xaqiiq haatana waxaa socda wejiga labaad ee tiimbeelista ee isbitaalka Samakaal xarunta aan ku leenahay magaalada Nairobi sababtoo ah celcelis inta maalinkii dadka Muqdisho sabab amni u dhimata iyo marka kuwa loo eego dadka sabab amni u dhintaay wax isku dhigmaya ma ahan wax isku dhigmaya okay arintani maxay ku imaatay arintani waxa ay ku imaaday taxadar la'aanta sirdoonkeena sida muuqata yacni sidee ninkan of dacaayad foolxun oo been abuur ah wadankeena ka gudbiyo uu mar kale u soo laabanaya isagoo xor ah miyaan awaltii hore lala socon oo aan la arag miyaan se la record garayn oo qofka fara hiisa aan maaragtay la dhigin oo la oran qofkaas waa dambiile adduunka cid ka yeelaysa ma lahan wadamadan dariska nala ah Kenya Ethiopia Djibouti tag maalin hadaad wax ka sheegto hal maalin adduunka dhanna waa sidaas hal maalin hadaad ku xadgudubto oo ma soo laaba kartid wadankaasi ilaa aad raali gelin ka bixiso ganaaxa wadankaas uu ku saarana aad aqbasho oo aad ka soo baxdo ma ku soo noqon kartid hadaba sidee ku dhacaysa marka inaga ninkan inuu nagu soo laalaabto marka uu fiyus waayo oo uu inta wadamadaas ku soo wareero meel kasta waa ninkan waa nin YouTuber ah marka uu fiyus waayo inuu ku soo laabto ee uu yiraahdo fiiriya waxaan ku soo laabtay wadankii halista badnaaye ila socda inuu yiraahdo sidee ku dhacday arintani wax la aqbali kara ma ahan wasaaradaha
iyo hay'adaha qaabilsan arintaasna waa inay si degdeg ah uga soo falceliyaan youtuberada Soomaaliyeed iyo kuwa kale maaragtay facebookarada Soomaaliyeed intaba waajib waxa idinku ah arintan inaad ka hadashaan oo aad boonboonisaan okay waxba yaan wardi ku daalin sawiradiisa iyo muuqaaladiisa waa idin soo dhigayaa qaybta Telegramka ayaan idin soo dhigayaa iyagoo si fiican u faahfaahsan halka ka qaata waxa weeye kana soo falceliya idan ila aad ma santihiin tiktokarada Soomaaliyeed oo ku jiraan yaan la soo dhaweyn qof noocaan oo kala yaan la soo dhaweyn yaanan la ixtiraamin qofan ku ixtiraamin oo sharaftaada adduunka ku ceebeynaya adiguna ha ixtiraamin cid kalena ha ka ogolaan in ay ixtiraamto mid kale ninkan marka uu magaalada ku soo baxayo waxa loo waardiinaya sida wasiirkii waxa soo raacaya askar badan oo maaragtay qoryo wada soo raacaysa ma ahan in lagu soo daro askartaas isaga laftigiisa waxa uu ka arkay inay halis tahay askartan tirada badan ee daba socota ninkani karaamadaas iyo sharaftaas maba lahanba in loo sameeyo mana ahan okay ugu yaraan adduunka waxa la sameeyaa boodhikaaro qolyo xoogag waaweyn oo budad wata ama bistoolad wata oo ku wardiinaya laakiin qoray in lagu wardiyo ma ahayn darajadaasna waa la gaarsiiyay ma gaarsiisna ninkan okay hadii muuqaal dawladda marka waxaan ka codsanaynaa in hadda gacanta lagu dhigo muuqaaladiisa hore draft qayb draft leeyahay jirta ama private inuu geliya laga yaabaa waa in muuqaaladiisa hore asaga dhinta la qabto muuqaaladii hore laga tuuro hal gelin bixi leeyahay dhig la yiraahdo hadda waxa uu duubayana laga qabto wassalaamu calaykum hadda shay iyo darad maafay iyo usbuuc ka sii horeeyay waxaan joogay Puntland bay Soomaalidu ninkii ku yiraahdo kulligeed waa wax khariban tahay been buu sheegay waxaan aragnay dadkii oo dadkaba waxa iyaga ay habka iyaga ay kugu dhaqmayaan iyo xadaarada iyo dadnimada iyo qadarinta iyo soo dhaweynta iyo dadnimada jacaylka adiga laftirkaaga aad xiisanaysid ورمشان جامعة كلام مقتالة عليه وزيرك ديجان ماني سيهاي أنا ديجان كي كفر قلبي أيام كسر قلبي أصير حبوا كسر قلبي مركي أساسي على أنت وكل سكوس ودارنا جفتي بلغسي يقولوا إلى يقرب ده الإسبار حتى أنا أولين أنا ببايع أنا بقول عم بي يقوم بي أوجه طبعا أنا كنت أنا لهن إلى أن نقول دارش هالدولة بس لشيء كرنا كان لفت كده معجزة إلى بارثنا لو باهي mararka qaarkood Soomaalidu qaabkay u dhaqmayso marka fiirisid waxaad u malaysaa dalkan dadkii lahaa inaysan ku noolayn ee ummad kale ay ku nooshahay oo koyta ah oo wax allaala iyo wixii ay ku fikiraanba samaynaya waa doqon dadka Soomaaliyeed badankood iyaga is arka ninkan hadda lama arki karo dawladda Soomaaliya ma soo qaban karto ciidamada sirdoonku ma daba geli karaan social media hanu ka sheegaynaa way daawadaan oo wayna daawadaan abwaan Camumaari way daawadaan oo aniga hadda waxaan u gudbinayaa inay dawladdu aragto ee waana daawadaan laakiin damiirkii iyo dadnimanimadii ay ku arki lahaayeen wax kaga qaban lahaayeen ma laha kan ugu horeeyo oo qabta hadduu yiraahdo xoogaagan $10 hadduu u dhiibo halkaas u dhaqaaqaya waa dad iyo dal baaba'ay waa dal aan idina lahayn waa dal dadka jooga iyagu aysan lahayn quruumo kale malaha ilaahay u celcelinayo dhulkan waa dihin yahay barwaaqo badan baa ku jirta laakiin dad kala ilaahay kayd uga dhigay baan u malaynayaa sababtoo ah dadkan Soomaaliyeed oo ku nool 90% waxaad moodaa inaysan lahayn dadkan inaysan lahayn inta yar oo u damqata oo lehna cid wax kama dhageysto laakiin malaha ar muuqaalkaas hadda aan ka hadlayo oo ninka gaalka 10 gaal iska dhashay ar waxa laga qabto arkaasoo inta la qabtay maxkamad la soo taagay oo la xukumayo arag waa wiil xun oo youtuber ah waa youtuber ma aha nin madax ma waa wiil wuxuu yahay youtuber ah wiilka youtuberka oo dalkaaga caayaya Muqdisho maanta wuxuu u joogaa si barwaaqo ah waxna lagama qabanayo bimacnaa kan hor yimaadana ulay dalbaayo yaa kule intaasaan ku soo gabagabeynaya waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nabadgelyo nabaadiina iyo nolol kulanteed warsan iyo weersan